wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa goobjoog waxaad ku soo dhawaataan warka galabnimo ee goobjoog TV shakhsiyadeyda sidaan u arko saxaafaddu inay tahay shaqo wanaagsan oo qofka markaas uu ka shaqeyn karo noloshiisana uu ku soo saari karo gabadha wariyahana waxaan aaminsanahay ama warbaahinta ka noqonaysa in wacigan maanta la joogo inaysan ragga ka liidan inay ka awood badan yihiin maahne waxyaabo badan oo ragga aysan qaban karin inay dumarku qaban karaan oo shaqadan ay ragga uga daacadsan yihiin ayaan aaminsanahay Soomaalida waxa ka dhaanacsan gabadhu markay wariye tahay ay intaas oo nin la shaqeynayso inaysan gabar wanaagsan ahayn sharafteeda aanay dhowrsoonayn yani gabar guriga joogtay iyadoo aan isku mid ahayn taasoo aan anigu kuleyba qof ahaan aan u arko inay wax beena tahay sababtoo ah qof waliba asaga siduu iska dhiga waayay siduu sumcadiisa u ilaaliyo caqabadaha kale waxa kamid ah tusaale ahaan marka adoo gabar nin mas'uul ah aad wacdid aad ku tiraahdo interview aan ka rabaa waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo na idaafi wiil ii soo dir anigu gabar wareysi ma siinaye asagoo markaas gabar shaqadeeda yasay laakiin gabadhu ay waxa dadku ay u maleynayeen ka awood badan tahay waxa jira dumar dhibaatooyin gaar ah qabo oo aanay markaas raggu ay suurtagal ah inay soo gudbiyaan dhibaatooyinka gabadh falko kale markay ku dhacaan waxay jecel yihiin dumarku in gabar dumar ah ay wareysiga ka qaado ama dhacdooyinkaas markay la faafinayo kale in gabar dumar ay ka faafisay jecel yihiin sidaas darteed aad ay muhiim ugu tahay saxaafaddu xuquuqda dumarka waxaan warbixin ka sameeyay dhacdo jirto oo sax ah waxa laga yaabaa dhacdadaasi in dhinacyo kala duwan ay si qaldan u fahmaan ay siyaabo kala duwan u fahmaan dhinac ayaan ku qancin warbixinta sidaan u sameeyay sidaas darteed markaas wuxuu qofkaas ku dhiirinayaa inuu qofkii wariyaha gabadha ahayd oo shakhsiga ahayd uu weerar ku sameeyay iyadoo markaas waliba kartida rag u leeyahay inuu waxyaabahaas dhibaatooyinkaas markay yimaadaan iska difaacanaysan gabadh awood u lahayn wariyaha haddii loo hanjabo ama dhibaato soo gaarto dhinaca amniga uu walwal ka qabo waxa laga yaabaa inuu hub qaadan karo asaga uu ishubayn karo oo hubna isku waardiyeyn karo laakiin gabadha wariyaha uma suurtagelayso inay ishubayso haddii iyadoon gabar askari aan ahayn lagu arko iyadoo basoolad wadata ama hub kala wadata haddii lagu arko waxa laga yaabaa in si qaldan Soomaalidu ay u fahmaan warbaahintu dabcan shaqooyinka la qabtay ay kamid tahay kama bedela markii la eego dumar iyo rag micnihii looma kala sareeyo warbaahinta waa wax qofka dumarka ahna qaban karo qofka ragga ahna uu qaban karo waxaan ku dhiirigelin lahaa gabdhaha wariyaasha ah ee rabaan inay warbaahinta soo galaan in aanay wax walwalay wax cabsiye ka qabin warbaahintu waxay la mid tahay shaqooyinka caadiga sida business-ka oo kale ay la mid tahay rag iyo dumarku si uga shaqeeyaan oo kale warbaahintan uga shaqeyn karaan